عاقل عمر عثمان oo kamid ah cuqaasha gobolka Awdal oo maanta iigu waramayay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu ka hadlayay khilaafka cashuureed ee u dhaxeeya magaalooyinka Berbera iyo Burco waxaana ugu baaqay magaalada Burco ee caasimadda gobolka Togdheer inay ixtiraamto qawaaniinta cashuurta ayna dejiso xiisada kala dhaxaysa magaalada Berbera ee caasimadda gobolka Saaxil caaqilka oo arimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yiri maanta ay taariikhdu tahay 13 bishii Afraad 2022 waxaan doonayaa in anigoo ah caaqil Cumar Cismaan Maxamed inaan ka hadlo arrinka labada gobol ee Burco iyo Berbera oo runtii aad iyo aad miisaan weyn ugu leh aanan qiimeeyo dadkooda iyo dalka dalahaanba waxaan haddana qaadan waayay arrin hadal isku fiiqa oo waqtiyadan ama maalmahan dambe rabadaanta ka socday TV-yada oo ay Berbera iyo Burco ay isu fiiqayaan runtii aniga jecel badan baa iga haysa labada gobol mar hadday sidaa tahayna Soomaalidu waxay tiraahdaa laba socod aad jeceshahay haddii ay islaayaan marada lagu kala celiyaa baa leeyahay aad midna u soo quuri weydo macna labadaas gobol miisaan weyn baan u hayaa karaaman waan u hayaa hadday se arrinkaas dhacay waxaan doonayaa inaan arrinka halka aan galaan doonaya runtii Burco waxaan ka maqlayay oo aan dhageystay inay ku canaananayaan in ay hanti saayida oo aanay xaq u lahayn gobolka Saaxil ee magaalada Berbera lagu qaado lacagtaas oo xaq darrana uga maqan gobolka Togdheer sidaa darteed waxay sameeyeen waxa qorqod ahaan ama saluugtan bay Burco samaysay Burcana Berberina arrintaa way ka jawaabtay waxay yiraahdeen wax arrinka xaq darra oo aanu qaadanaa ma jirto runtii arrinka markaan dhageystay Burco dhageystay ay jawaabtii Berberaadna dhageystay dad badan oo waxyaabahan dhaqanka dawladaha hoose iyo xisaabaha iyo beersantiga sida loo kala leeyahay alla sheekaystayna arrinkaas waxay noo soo baxay in ay arrinka ay ku qaldan tahay gobolka Togdheer ama magaalada Burco ay ku qaldan tahay waxay ku fiican tahay walaalnimadu iyo wax isku ahaanshuhu wuxuu ku fiican yahay hebelow cun iyo hebelow ii cunay kuma fiicna hebelow maxaad waxaan u cunaysaa kuma fiicna runtii inkastoo aynu joogno bishii Rabadaan oo cafiska iyo saamaxba u jiro raqdii waa heena ay noo taal oo dambaskeedii wali aynu la daalaadhacano haddii waxay la tahay in sokeeyana la yahay in arrinka dib loo dhigaa wanaagsanaan lahayd hoosna loo dhigo arrinta waxaan leeyahay Burco arrinta ha ka noqoto xaal ha siiso gobolka Saaxil xaal ha siiso sababtu waxa weeye magaalada Berberi waa hooyadii Soomaaliland waana kadinka kaliya ee aynu caalamkana kala xiriirno caalamkuna inagala soo xiriiro maadaama ay sidaa tahay meeshaasi waxay nagu qabtaa gobolada Soomaaliland horta runtii ku qabtaa dib weyn haddii aan ka sheekeeyo arrinta iyo culayska magaalada Berbera haysta waxa xoolo ama Soomaaliya ha ka yimaadeen ama geeska Afrikaba ha ka yimaadeen ama Soomaaliland ha ka yimaadeen dhammaantoodba kadinkaasay maraan sida ay cashuur qaadayaasha ama xeeldheerayaasha golaha deegaanka ee Berberaad sheegeenna waxay ka qaataan waa 700 oo shilin halka ay Burco neefka ka qaato 5,000 oo shilin oo cashuura magaalada Berberi waxay ka qaataa 700 oo shilin 700 ee shilin waa digada iyo wixii lamid ah leeyo waa wax iska intaasba ma dheera marka aad laagiin eegto dhibta ay Berberi ku qabto safarka Soomaaliland ee halka ama ka guuraya ama ka soo degaya dhibta ay ku qabto Berberi haddaan idin qiyaaso horta xiriyaha xooluhu ku degaan waa koonfurta magaalada Berbera dekada xoolaha laga ranaana waa galbeedka Berberaad qiyaas ahaan 5 kiilo baa u dhaxaysan malniya dekada iyo xiriyaha
5 kiiloomitir u dhaxaysa xoolaha saddexda galabnimo ayaa xoolaha la rariya la soo daaya xoolaha marka sidaa loo soo daayo 5,000 oo neef oo ariya marka la soo daayo ay halkaa ka soo baxaan ay xirada ka soo baxaan ay dekada ku socdaan waxay magaalada saddex marka loo qaybiyo qayb bay bandoo ka dhigaan siigada iyo wadada iyo xashiishka intuba way isxidhaan dabadeetana ilaa saddexda habeenimo ee saddexda aroornimo ee dambe ayay xoolahaas socdaan haday geel tahay iyo haday loo tahay iyo haday ari tahay halkaas siigada iyo culayska iyo buuqa iyo sawaxan kuba ku baxa xaafadu waxa taa marka kuleylka wax laga yaabay inaan dibadda fariisan karin waxa kale oo iyaduna jirta martida ayaa waxa soo ummada waxa wadataa martiba u tahay waxaan oran lahaa gobolka Burco runtii gartu de gari laba kaba qosliso arrinka waad ku gardaran tahay Burcoy gardarrada daa haddii maanta Burco halkay berberi degan tahay Burco deganaan lahaydna mas'uuliyadda inta Burco may qaadi karteenoo dee dulqaadyarada inkastoo ay raganimo leedahay Burco haddana dulqaadyari waan ku ognahay nin kubad la dhaafay ayay ka nabadgeli waayeen nin kubad la dhaafay baa ka nabadgeli waaye de nin xoolo wataana kama nabad galeen runtii Burco waxaan leeyahay arrinka dib uga noqo raalina geli gobolka walaalka ee saaxil raali gelisi inta markaan ka gudbo haddii aan gobolada kale iyo degmooyinka kale u sharaxo berberi waxay leedahay waa meel gacan furan horta waana meel dadka marti gelisa oo deeqsiya dalbaad waa meel roon danyarta berberigii dhaweyd 2018 ayaa waxa uu sameeyay maayirka magaalada Berberaad 200 oo guri oo danyar u sameeyay waxaan dabayaaqadii sanadkaana inuu 100 guri iyagana u sameeyay dhammaantoodba oo danyarta muftaax ka saaray horta waa marka ilaahay dadka xoolo siinaya dadkiisu siyaaba la yidhi laakiin berbere markii ilaahay la doonayay inay hor u marto maayir dicin baa loo doortay aad iyo aad baan maayirka u hambalyeynaya mar aan qiimeeyay degmooyinka afara oo degmada berbere ah iyo Hargeysa iyo Gabiley iyo Boorama 2018 haddaad dib u eegtaan waxaan ku qiimeeyay labada degaan ee ugu horumarsan berbere iyo Gabiley runtii suun dahaba ayaan abaalmarin u siiyay anu maayirka berbere iyo deegaanka berberaadna iyo magaalada Gabiley iyo deegaankeedana waxaan siiyay galaas dahaba oo aan sharaf uga dhigay maxay magaalada Hargeysa iyo magaalada Booramana waxaan ku ganaaxay oo aan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsaday inuu 3 bilood kabka dawladda dhexe ka gooyo runtii foolxumadeeda iyo waxtar la'aanteedayna sidaa wahayd sidana waxaan u siiyay sidaas ay haydo de waxay horumarkay gaadhay runtii maayirkaas maantana waan hambalyeynaya waxaan maantana siinayaa galaas dahaba maadaama ay la aflagaadeeyay oo Burcana ay aflagaadeysay dulqaadka iyo mudakarnimadaana ay leedahay waxaan siin lahaa maantana galaas dahaba baan mudakarnimadeeda iyo maayirnimadeeda iyo wixii ku siin lahaa